kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiina meel walba joogtaan waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee maanta. haddaba kulamadani waxa ku soo qaadan doona qodobo dhowr ah oo markaasi aanu halkan ku jeexjeexi doono. fadlan haddii aad nagu cusub tahay follow inoo dheh page-ka videogana sii share gareey oo meel dheer gaarsii. mahadsanid like-ta iyo comment-gana hanaga ilaabin. haddaba waxaanu ku bilaabaynaa qodobada ugu dhowrka roon ee barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha ayaa ah Chelsea oo dhulka lagu jiiday kulankii labaad oo xiriir ah. waa toddobaadkii la soo dhaafay Fulham 2-1 ku garaacday Stamford Bridge iyagoo jooga. sidoo kale Switch ayaa maanta waxa xalay ay ku garaacday 2-1 ayadoo markaasi away ahayd kooxda Chelsea. haddaba Chelsea ayaa waxa ay markaasi gadaal ka noqotay mid battery low ama daciiftay oo tabartiiba iyo energy-gii ay tartarta lahaa ay ku ordaysay oo markaasi noqday mid eber ah. haddaba sidoo kale kulankaasi maxaa laga bartay in kooxda Chelsea ay mar labaad ay kufto isbuuc isku xiga hal isbuuc gudihiisa. haddaba kulamadaas waxa ay markaasi saadaalin weyn ama rajo weynba ay geliyeen ku guuleysiga Premier League kooxaha imika u tartamaya ama loolanka xoogan kula jira sida kooxda Liverpool iyo Arsenal oo iyaguba doonaya inay ku guuleystaan kulanka ama horyaalka Premier League ee dalkaasi Ingiriiska. haddaba sidoo kale kooxda Manchester United ayaa iyadana sidoo kale la dubtay oo 4 kulan ama kulankii shanaad oo xiriira Premier League ayaa laga badiyay. macalinka cusub waxa uu dheelay 11 kulan 6 kamid ah waa la garaacay 2 ayuu soo badiyay 2na bareejo ayuu soo galay. haddaba maxaa markaasi la gudboon macalinkan? waxa uu muuqdaa macalinka inta aan la gaarinba waqtigiisa ama January oo Brito bilow inoo tahay hadduu eebicidmo 2025 inuu ugu bilowdo in la ciyaariyo ama waqtigiisa xumaa oo markaasi ku bilowdo. haddaba xaaladda macalinka Man United ayaa waxa uu imikan yahay mid u muuqata alla maxaa isoo keenay Premier League. kooxda oo haystay ayaa imika asigaba u darsatay Sport CB ama Sport Lisbon ee dalkaasi Portugiiska. haddaba macalinkan ma u muuqda mid shaqada laga eri doono 2025 gudihiisa January ama February haddii uu sidaan ku sii socdo. waanu arki doonaa wixii ka soo baxa January markii la galo macalinkan haddii ay kooxdu dhaqaale siiyaan oo iska dhiso meelaha uu u baahan yahay in markaasi oo ka dhiso kooxda. sidoo kale difaaca dhexe iyo qadka dhexe ayaa waxa xalay oo u muuqday kulanka Newcastle United ee la ciyaaraysay Manchester mid leesaga cararayo oo alla dhinacaha iga soo qabtay ay ka dhacday. haddaba kooxda Man United ayaa waxay u muuqataa waayihii ugu dambeeyay macalin kasta oo la keeno mid xaaladiisu ay aad u adag tahay inuu la qabsado kooxda ama oo kooxda isku dabarido oo markaasi ka soo saaro koox line up wanaagsan ah. loomana ogola in kooxda macalinka yimaado oo dhammaan ayaduba oo bedelo sababtoo ah kooxda Man United waxay u baahan tahay gabi ahaanba in la dileed gareeyo ama qashinka lagu shubo ciyaartooyda u ciyaarta oo aan waxtar u lahayn kooxda oo dhamaantoodba aad moodo inay markaasi sii dabdhacayaan. haddaba kooxdu waxay u baahan tahay lacag aad u fara badan in lagu shubo laakiin milkiilaha iskale kooxda ma ogola in lacag one time ama hal mar lacag aad u fara badan laga qaado sababtoo ah xaalku ayuu adag yahay. sababtoo wuxuu u baahan yahay ugu yaraan kooxdu waxay u baahan tahay in la galsho qarash gaaraya 2 bilyan oo euro ama 2 bilyan oo pound taasi oo ay ku soo gala karaan dhammaan ciyaartooy aad u fara badan oo aan kuwan kamid ahayn. kooxdana inta joogto waa laga dileed gareynayaa macala Porteriga. haddaba tusaale ahaan De Gea waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu fiican ee dalkaasi Italy oo markastaba qaadanaya ciyaaryahanka man of the match markii ay Fiorentina ciyaarayaan. haddaba De Gea ma qaldana ma kooxda qaldaneed ciyaartooyda dhammaan ee ka tagtay kooxda Manchester United oo markaasi laga eriyay sida Cristiano Ronaldo iyo weliba De Gea iyo dhowr ciyaartooy sida Pogba oo ay markaasi ka wada tageen. marka waxaad moodaa kooxdu inay ayadu ahayn ay tahay
macallimiintu iyo kooxdaba dhammaantood waxay u baahan yihiin reform in lagu sameeyo ama dib u habeyn lagu sameeyo kooxda Manchester United. adno kooxda Arsenal oo rajo weyn ka qabta in horyaalka ay ku guuleysato. waa sababta aan u leenahay Arsenal ayaa horyaalkan ku guuleysan karto. waa kooxda Chelsea ayaa laf dhungasho ku noqotay labadii kulan oo ugu dambeysayna Chelsea waa laga badiyay. haddaba rajada ay lahayd Arsenal waxa ay ahayd inay markaa kooxda ka horeyso kaliya ay la tartanto oo ay markaasi isku daydo sidii u soo qaban lahayd. waana kooxda kaliya ee markaasi qaban karta kooxda Liverpool haddii si loo fiiriyo. haddaba Liverpool kulamadii ugu dambeeyay ee Arsenal la dhashay natiijadeeda ugu badnayd waxa lahayd kooxda Arsenal waa afartii kulan ugu dambeysay saddex kamid ah ama lama kamid ah Arsenal ayaa badisay lamana bareejo ay wada galeen. halka kooxda Liverpool ay markaasi u muuqato waayihii ugu dambeeyay in Liverpool markii uu Klopp ka tagay kadib iyo waliba inta uu Klopp joogay kulamadii ugu dambeeyay Arsenal isla dheelaan inay markaasi xagga Arsenal ay awood ay saasa aysan u lahayn Liverpool inay iska dhicisa weerarka iyo difaacyada dhexe ee markaasi kooxda Arsenal inay wiiqaan saddexda weerar ee afka hore uga ciyaarta kooxda Liverpool sida Mohamed Salah, Luis Diaz iyo waliba ninka la yiraahdo Jota. haddaba maxaa markaasi la gudboon Arsenal inay horyaalkan qaado. haddaba qodobo dhowr ah oo Arsenal horyaala ayaa jiraan haddii aysan dhaawac markaasi la kulmin. Bukayo Saka bedelkiisa waa in January markii la gaaro oo Brighton suuqa kala iibsiga xagaagan oo furmi doono inay soo gataan qof booskiisa bedela. Arsenal ayaa u muuqata mid markaasi u baahan garabka Bukayo Saka. sidoo kale Liverpool ayaa hogaanka sii dheereysatay oo ayadu imankan dhibco fara badan kaga hayso kooxda Arsenal oo ah 9 dhibcood. Arsenal weli ma aysan dheelin laakiin waxa ay dheeli doontaa habeen dambe oo ay la ciyaari doontaa kooxda Brentford ee ka wada dhisan yihiin magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska. sidoo kale waxaanu ku soo qaadan doonaa kooxda Barcelona oo xaaladeedu alow sahal ay tahay. ciyaaryahan kasto ay rabto La Ligaha awood uma lahan inuu u rajeys gareeyo ciyaaryahankaasi. marka waxa aad iyo aad u adag sidii ciyaaryahankaasi loo rajeys gareyn lahaa, sidii ciyaaryahankaasi looga diiwaan gelin lahaa La Ligaha dalkaasi. hadda Olmo waxa ay haystaa kaliya ilaa 1 January fursad ah haddii ay awood u yeelan weydo kooxda Barcelona in ay rajeys gareyso ama ay ka diiwaan geliso La Ligaha dalkaasi Spain inuu si free kaga tagi doono. dhaqaale kasta oo ay ka soo bixiso ciyaaryahanka haddii aysan awood u lahayn in ay markaasi ka diiwaan geliso La Ligaha waa maxay sababta ku kalfayso ama ku qasbayso Barcelona in ciyaaryahan dhaqaale ka soo bixiso ama si free xataa ugu yimaado. haddaba tusaale markaan siiyo waxa awood loo waayay in la rajeys gareeyo sida Xavi oo kaleento oo ciyaaryahan dhaawacmay oo ka maqan kooxda looga baxshay liiska si loo rajeys gareeyo asiga dartiisa. sidoo kaleento Gundogan oo Manchester City ka tagay oo halka tagay ayaa waxa loo waayay diiwaan gelintii hal sano ayuu ka soo xamaashay waa ka soo laabayay. ayadoo dhanba waxay noqotay ciyaartoy gaadgaad hal sano hay la joogo halkaasna intii la iskala daba qeylinayo isbuucaana la sameynaa bishana inta ka dhace saana waxayna abiil qaadasho waxay ugu jiraan oo dhanba waxay ku dhamaanaysaa halkii sano oo ayadu danta ka ahayd in halkaas horyaal ay ciyaarsiiso ciyaaryahan kasta oo free ay ku soo qaadato. hadda waxay free ku gadgaadaysaa Thomas Partey iyo ciyaartoy kale oo dhowr laakiin La Liga ma malayn dooni haddii ciyaaryahan ay rajeys gareyn kaga tagayo rajeys gareyn la'aan waxa aad u adag marka inay marka kooxda Barcelona ay markaas ciyaartoy ay hesho. haddaba waxa markaasi idaleeyahay haddii aad nala soo gaarteen ilaa dhamaadka ciyaarta ama barnaamijkeena faaqadaada ciyaaraha waxa idinka codsanayaa fadlan in aad like noo saartaan oo aad markaasi noo sii share gareysaan page-ka si uu u gaaro asxaab fara badan. waad mahadsantihiin. waxaa saaxiibkiin Maxamed Qarbaariyo sidaan idinkaga tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.